السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا مركز الجنة كي أسد دار والجنة وحن ما تدين هينا قصة طابا نيس قلبي جاجا وحو دلي أفر عرورة وحو أهانين دنير وحو رفات بدن أمر يسيدو أكرين لها وحبرشنا أهلي لهايين isagoo uurka ka gubanaya ayuu afka ugu dhool cadeyn jiray si uu ugu ilaaliyo inay wajigiisa murugo ka akhristaan maalmaha qaar wax yar uu soo helo ayuu cunto ugu soo iibin jiray isagoo u baahan ayuu ku oran jiray anigu waan soo cunaye ilmaheygii ii dharga si uu ugu ilaaliyo inay gaajo ku seexdaan hadafkiisa nolosha wuxuu ahaa naftana ku qancin jiray inuu isaga dhididka ka dhamaado dib kastana maro laakiin aysan caruurtiisa dayac iyo daryeel xumo helin kolkii caruurta weynaadeen ayuu aabihii halkii guri u lahaa uu ku qaadatay inuu sanado badan dhiso si aysan kiro ugu korin uu u iibiyey kuna dhoofiyey waxay kala aadeen wadamo kala duwan waxay qaar ku mashquuleen shaqo guur iyo guri sameyn qaarkii kalena baashaal iyo arrimo bulsho odaygii oo da' iyo duqnimo haleeshay ayaa maalin teleefoonkiisa gacanta u qaaday halka lagu hagaajiyo farsamayaqaankii ayaa u sheegay inuusan teleefoonka waxba ka qaldanayn oo uu shaqaynayo ninkii waayilka ahaa oo indhihiisa ilmeynayaan ayaa yidhi haddaba maxay caruurtayda ii soo wici waayeen dulucda sheekada marnaba ka mashquulin waalidkaaga ma jirto cudurdaar aad u heli karto inaadan xiriir la samaynin kama aysan tegin markaad yareed oo u baahnayd ha ka tegin goortii ay gaboobeen oo ay ku baahan yihiin allaha naga wada yeelo kuwii waalidkooda baari u noqda kana ducaystay allaha u naxariisto inta aabbahooda dunida ka tagtay iyo hooyadooda oo ka sii hormaray allaha cimri dheer iyo caafimaad buuxa u siiya inta aabbahooda iyo hooyadooda u nool yihiin